daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku saleysan ee aanu sida joogtada halkan idinku la wadaagayno. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay 6 mas'uul oo madax ka noqon doona mashruuca Berbera Corridor oo ay hay'adda horumarinta ee Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabtu ay maalgelinayso. warqad uu madaxweyne Biixi 3 bishii June u diray Abu Dhabi Fund for Development oo aan saxaafadda loogu talagelin balse uu wargeyska geeska Afrika oo ka soo baxa magaalada Hargeysa uu helay. waxa uu madaxweyne Biixi ku magacaabay 6 mas'uul oo iskugu jira khubaro injineer ah iyo kuwa maamulka iyo maaliyadda qaabilsan. waxaana nuqul ka mid ah uu madaxweynuhu warqadan wargelin ku siiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon isagoo aan haba yaraatee warqadan aan lagu xusin wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka. waxaana unugan madaxweyne Biixi uu dhisay ay si toos ah u hoos iman doonaan madaxweyne Biixi. madaxweyne Biixi waxa uu warqadan ku yiri anigoo tixraacaya warqada ay soo qortay sanduuqa horumarinta ee Abu Dhabi Fund kuna taariikhsan 18 May ee sanadkan 2020 taas oo sanduuqu ku codsanayo in la dhiso unuga fulinta mashruuca ee ku aastaysan qodobka shanaad ee heshiiska afgarad MOU ee ka dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo sanduuqa horumarinta Abu Dhabi. dawladda Soomaaliland waxay go'aansatay in ay magacowdo kooxda unuga fulinta mashruuca oo ka kooban maamule u qalma oo ay kaalmeynayaan khubaro farsamo maaliyadeed iyo maamul kuwaas oo kala ah sidan: 1 injineer Maxamuud Cabdi Maxamuud Duudi maamulaha mashruuca, 2 injineer Cabdikariim Xasan Nuur, 3 injineer Mawlid Nuux Taani, 4 injineer Cali Yuusuf Kaahin, 5 Mawlid Maxamed Raabi sarkaalka maaliyadda, 6 Mukhtaar Xuseen Maax isaguna waxa loo magacaabay sarkaalka maamulka iyo isgaarsiinta. madaxweynuhu waxa warqadda ku sheegay in unugan uu si toos ah u hoos imanayo isaga isla markaana xilka iyo waajibaadkooda uu ku faahfaahin doono. madaxweynuhu qoraalka ay yihiin kuwa ku xusan farqadda 4 iyo 5 ee afgaradka waxaana ka mid ahaa 1 in ay si joogto ah u kormeeraan isla markaana u hayaan diiwaanka dhammaan hawlaha dhismo ee mashruuca Berbera Corridor, 2 in ay si joogto ah u darsaan oo ay u ansixiyaan dhammaan heshiisyada loo soo gudbiyo, 3 in ay si joogto ah u korjoogteeyaan hawlaha mashruuca ee soconaya isla markaana ay ka bixiyaan talo farsamo dhismaha iyo wixii isbedel ah ee daruuri ah ee ku yimaada naqshadda hadba sida duruufuhu goobtu ay noqoto, 4 in ay si joogto ah u kormeeraan oo ay u hubiyaan tayada dhammaan qalabka iyo shaqada uu gudanayo qandaraasluhu ama cidda ka wakiilka ah si waafaqsan tilmaamaha gaarka ah ee alaabta tayadooda la ansixiyay. qoraalka waxa uu ku tilmaamay madaxweynuhu in unugu u xil saaran yahay wixii xidhiidh ah ee ku saabsan mashruuca xalinta khilaafaadka iyo arrimaha kale ee daruuriga ah. ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu ku yiri warqadiisa waxaanu jecel lahay inaanu ku xasuusino in shaqaalaha konseer ay ka maqan yihiin goobta shaqada tan iyo 2 Abriil ee sanadkii 2020. sidaas darteed dawladda Soomaaliland waxay si dhaqso leh u codsanaysaa in shaqaalaha konseer ay dib u bilaabaan waajibaadkooda ay u xil saaran yihiin ee ah korjoogteynta iyo maamulka tayada shaqada socota ee mashruuca Berbera Corridor sida ugu dhaqsaha badan. sidoo kale dawladda Soomaaliland waxay codsanaysaa in khilaafka taagan ee ka dhaxeeya qandaraaslaha MBHH iyo shirkadaha reer Soomaaliland qandaraaska ka sii qaatay subcontractors ee ku saabsan bixinta lacagtii u dambeysay in la soo afsharo si waafaqsan qodobka heshiiska. intaas ayuu ku soo koobay madaxweynuhu warqadda u qoray sanduuqa Abu Dhabi Fund